ridan oo lagu magacaabo Lincoln ayaa la doortay maayarka magaalada Vermont oo ku taala xuduudda walaayadda New York kadib markii ay ka cod badatay xayawaano kale oo la tartamayay. Doorashada ayaa waxa codeeyay 2500 oo ruux oo kamid ah dadka degan magaalada yar ee Fairhaven. Waxa la loolamiyay Lincoln 15 kale oo xayawaan ah kuwaasi oo u ordayay jagada odanimada ee degmadaasi. Waxa kamid ah haybsad lagu magacaabo Cici Towel ee la yiraahdo Steel Hebler iyo Sheila dhaho Crystal. Lincoln waxay ku soo baxday 13 kamid ah wareegyadii doorashada iyada oo ka hormartay ee lagu magacaabo Sammy Figure oo 12 sano jir ah. Haddaba ridan 3 sano jirka ah ee loo doortay maayarka magaalada aadka u degan ee Vermont ayaa waxa ay ka qayb gali doontaa shirarka golayaasha deegaanka, kulanada bulshada iyo xafladaha heerka sare ah ee ka qabsama magaaladaas yar. Fairhaven ma laha maayar bani aadam ah. Maamulaha degmada ayaa u sheegay jaridada Rutland Herald inuu ku fikiray in la doorto maayar aan bani aadam ahayn oo xayawaanada la rabaysta. Waxa uu sheegay in arintani dhaqaale loogu ururinayo garoon kubadda cagta oo ay magaaladu yeelato balse waxa la ururiyay $100 oo kaliya. Lincoln ayaa xafiiska la wareegaysa maalinta Salaasada ah ee soo socota. Haddaba arinta la yaab kale ayaa waxay tahay rag kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Mareykanka oo ay kamid yihiin senataro ku jira sharci dejinta wadankaasi ayaa soo dhaweeyay talaabadan waxayna guul u rajeeyeen ridan loo doortay maayarka halka sano xilka haynaysa. Vermont waa magaalada labaad ee ugu dadka yar sidoo kale waxay kaalinta lixaad kaga jirtaa magaalooyinka ugu baaxadda yar marka laga hadlayo dhanka dhulka ee guud ahaan 40 maamul ee uu ka kooban yahay Mareykanku. Fairhaven waa magaalo yar oo cagaaran oo aad u qurux badan sidoo kale waxay leedahay kala dambeyn dhanka sharciga iyo deris wanaag. Maxamed Maax Faaliyaha Qaranka Hay'ad Chicks.